السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبديت آدي آد مهم ويها مسج كان إن شاء الله تعالى مسج كان وحن كدوبة يا إن شاء الله تعالى ميتينج حالي إن شاء الله تعالى أنا لي لني آش oo ku saabsanaa maaragtay round table-kii ama meeting-kii aanu lahaan jirnay dadka aasaasiyaasha ah marka waxaan go'aansaday maadaama aasaasiyaalkii meeting-ka ay yeelan jireen uu soo dhammaaday oo xalay kulanka ugu dambeeyay uu ahaa shirkadiina ay isku diyaarinayso in ay suuqa timaado ayaa waxaan jeclaystay update-ka ugu dambeeyay oo ash oo ah CEO-ga company-ga ama ninkii soo bilaabay shirkadan aan fursadda u helnay inaan midka ka noqono update-kii ama waxyaalihii ugu dambeeyay uu nala wadaagay ayaan jeclaa si quick aan u soo koobo message-kan maadaama aan rabo in aan dadka kalena la wadaago waxaan ku koobi doonaa warbixinta guud wixii gaarana groupka Samon Basif Soomaalida ayaan insha Allah si qaasa dadka founderska ula wadaagi doonaa laakiin inta qusaysa dadka kalena ay kaga faa'iideysan karaan ayaan rabaa insha Allah in halkan ku soo gudbiyo horta ash markii ugu horeysay uu maaragtay soo galay wixii ugu horeeyay uu ku bilaabay waxay ahayd in uu mahad noqo ama u congratulate gareeyo ama u hambaliyeeyo dadkii Soomaalida ahaa samaystay xafladii aan idinla soo wadaagnay ka dhacday Soomaaliya markaas sida live-ka ana adduunka kale loogala soo qayb galay waa noo sacbiyey waana loogu hambaliyeeyay maasha Allah tabarakallah taana waxay noo ahayd horumar iyo maaragtay farxad aan aad iyo aad loo soo koobi karin in adduunka dad Soomaali ah laga arko waliba qaybta Ombasif maaragtay boardkeeda nala ka arko nala kugu hambaliyeeyo ninkii dhan ee shirkadda iska laha uu noo hambaliyeeyo noo sacbiyo uu yiraahdo walaalaha wuxuu isticmaalay kelmadda ah brothers and sisters oo Soomaalida ah aad iyo aad baan ugu farxay runtii waan rajeynaya qof kasta oo Soomaaliya inuu ku farxay waxa kale oo ash ka hadlay asbuuca soo socda halkaan ka yar akhrinaya marka insha Allah saa ila socda noodka wuxuu kaloo ka hadlay ash next week ama asbuuca soo socda isbedel badan inuu ku dhacayo background-ka back office-kan ka wada back office waxa weeyaan waa meesha annagu maadaama dad founders aan nahay shirkadda aan ka galno oo warbixinta gudaha aan access-ka uga nahay akoomadayada iyo say wax u socdaan iyo product-iga aan ku test gareyno aan nidaamka aan kaga jirno dadka aan message-ka u duubaya dadka guud oo iskala socon karaan laakiin dadka founders-ka ama shirkadda qaybta ka ah ayaa message-kan uu aad u quseeya marka back office-kaaga ama xafiiskaaga qaaska ah isha ku hay asbuuca soo socda isbedel weyn ka dhacayo insha Allah ta'ala oo aad iyo aad u cajaa'ib ah oo waxa weeyaan aad iyo aad u muhiim ah waxa kale oo ash ka hadlay Ombasif kelmadda uu isticmaalay waxay ahayd ma ahan muhiim in aad ogaato wax kasta oo Ombasif ay samaynayso laakiin waxa muhiim ah inaad ogaato inaad guuleysatay taasna waa kelmad aad u weyn oo runtii macnaha waa qaab motivation camal ah ma sha Allah tabarakallah waxa kale oo ash nala wadaagay waxa kamid ahayd ugu dhiirigelin bay intii hore u badnayd markii dambe ayuu barnaamijka xoog u galay mid kale nala wadaag waxay ahayd don't wish luck but create one macnaha ha rajayn rajo badan macnaha inaad guuleysato lucky ha macnaha ha rajayn inaad nasiib yeelato laakiin adigu mid create garayso ilaahay subxaanahu wa ta'aala dadka nasiibka uu kala nasiib way kala leeyihiin laakiin mar walba inuu qofku asagu waxa create garaysto oo waxba gacanihiisa ugu bal xagla laaban maxay dhaheen Soomaali xoolo kuma yimaadaan marka taasna waxay ahayd arintaas waxa kale oo ka hadlay waxay ahayd asbuuca soo socda hadii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ogolaado in ay isbedel badan ku dhacayo xagga dashboard-ka waxa weeyaan meesha laga arko wax walba maaragtay ku saabsan annaka maaragtay akoomadeena gudihiisa taasna waxa weeyaan wuxuu yiri waxaad arki doontaan isbedel badan oo ku dhici doona dadkii founders-ka ahaa maadaama dad badan ay pending ku jireen ama pending founders ay ahayn waa dadka shirkadii ka mid noqday xibinta ka soo noqday is-register laakiin aan lacagtoodii ku shubanin maxaa la yiraahdaa aan active-ka aan ka dhiganin akoonkoodii oo pending-ka waxa la yiraahdo akoomadooda ku jiray in ay ma aragtay completely la delete gareyn doono waqtiga maalinta exactly ma uusan sheegin ash laakiin wuxuu sheegay
in asbuuca soo socda hoos u dhac weyn dadka founderska ahaa uu ku imaan doono oo la kala shaandhaynayo oo akoono badan la liidayo maadaama shirkadii ay lasoo launch garaynaya suuqa imaanayso marka taasna qof kasta oo ma aragtay bending ku jiray akoonkiisu waxaad ogaataa in meesha laga saari doono aadana xaq u lahayn in aad ahaato qof founder ama qof xibinka ah shirkadda marka taasna halka ayaad xibinimadaadi ku weynaysaa marka inaad $95 maanta aad xibinimadii aad shirkadda kaga mid ahaanaysay aad ku weydo waa runtii waa unfortunate waa wax aad iyo aad looga xumaado oo anigana khaasatan aan ka xumaa qof Soomaaliya inay taa ku dhacdo marka waxaan rajaynayaa qof kasta oo akoon bending ah ama akoon aan lacagtii la bixin oo active ahayn uu hoos yaalay in uu walaalihiisa dhexda u xirto la xiriiro haddii adiga laftirkaaga uu saa kaa yahana in aad ma aragtay arrintaas aad ka degdegto intaan waqtigu kaa dhicin sidoo kale ash waxyaalihii nala wadaaga waxaa ka mid ahayd updatekii nala wadaaga waxaa ka mid ahayd ownet maxaa la yidhaahdaa productiga la yidhahda ownet in isbeddel lagu samaynayo oo xoogaa laga bedelayo maadaama aanu hadda isticmaalno oo backdoorka dadka nala joogaahi founderska ay hadda si toos u isticmaalaan platformka ownet in wax laga bedelayo oo dib u habayn lagu samayn doono asbuuca soo socdana aad arki doontid ma aragtay isbeddel badan oo ku dhaca maxaa la yidhaahdaa ma aragtay dhinacaas sidoo kale wuxuu ku celceliyey waxaan dhiliidi doonaa ama tirtiri doonaa dadka founders bending founderska loo yaqaano xoog buu ku celceliyey 2-3 jeer buu ku soo celiyey please hadduu akoonkaa bendigaraysan yahay ku dadaal sidii aad akoonkaas active kaga dhigan lahayd dayn iyo deeq waxaad ku hesho sababtoo ah fursad gacanta waxaa kuugu jirta aan adduunkaaga intaad nooshahay ku soo maraynin sidoo kale ash wuxuu sheegay productyaasha suuqa imaan doona ee Umbasif ay leedahay above market value leeyihiin aad iyo aad suuqa sidii ay hadda ku yaalaan productyaasha ayaga la midka ah productigan ka hadlayna waa virtual product waa wax aan la taaban karin hadda zoomkan aan wax ku duubayo ma taaban kartid laakiin inuu shay yahay oo la isticmaalayo wad ogtahay sidoo kale Facebook aad maalin walba scroll garaynaysid waa product laakiin ma taaban kartid oo waxa maarta gacanta lagu taaban kara maahan sidoo kale YouTube ka wax maalin walba ka daawatid oo message kan laga yaabo inaad ka daawatid waa sidoo kale marka productyaashaas aad iyo aad value wuxuu leeyahay macnaha productyaasha aan suuqa keeni doono waxay noqon doonaan maxaa la yiraahdaa kuwo ma aragtay 3 sano ka horeeya suuqa alaabta u dhigmata ee hadda taala 3 sano markaan ku leeyahay macnaha shay 3 sano ka horeeyay macnaha 3 sano suuqa kaga horeeyay amal ayay noqonayaan means isku qiimo ma noqonayaan shayga maantay u dhigma oo mail oo ah macnaha oo mailka waa sida maxaa la yiraahdaa emailada caadiga ah isticmaalo kale laakiin servicekiisa iyo featureskiisa iyo ajaa'ibta uu leeyahay markaad wax ku qordho ayaad ogaan doontaa ajaa'ibka sidoo kale oo mail haddaan ku noqdo wuxuu yiri sidoo kale oo mail waxaa la soo releasekiisa ugu horeeya asaga la samayn doonaa 19 August kaas waa la sii calaameeyay insha Allah ta'ala waa release oo testi release ma filaya laakiin ma sha Allah tabarakallah waa arrin ajaa'ib ah maadaama ay caddahay Umbasif meesha laga bilaabo August in ay kowda August laga bilaabo tafaxaydisho badan ay jirto isxirxir uu jiro la keenayo maxaa la yiraahdaa maaragtay domainkii ama website-kii ma aragtay dadka ma aragtay isticmaali lahaayeen website-yadii traffic loogu diri lahaa waa in aad isxirxirtaa waa inaad akoonkaaga ka warqabtaa waa inaad engage ahaataa absolutely waa inaad engage ahaataa haddaadan engage ahaan jirin maantay oodan ku xirnaan jirinin miitinada waxaa dhacaya backdoorkaaga maalintii haddaadan fiirin jirin 2-3 jeer maanta way kula habboon tahay in aad samaysid marka waxyaalaha ugu horeeya ee la soo release garay doono productyaasha ayuu ma aragtay calaameeyay inta ay yihiin backdoorka ayaan ma aragtay qaabkay kala yihiin iyo group ahaan ba isla share gareyn doonaa publica ma soo dhigi doono iyo sida ay u kala noqonayaan biidnillaahi tacaala sidoo kale product waxaa jiri doona cusub
productgaasna insha Allah luuqa ama some on passive ayaan ku duubi doonaa ma soo dhigi doono xagga publica warbixintiisa waxa weeyaan new product ayaa imaanaya sanadka cusub oo weliba bilaash uu ku isticmaali doono qof kasta adduunka koonkiisa jooga amba lacagba laga rabin cajaa'ib soo maahan magaciisana kuma sheegi karno laguma sheegi karo maxaa la yidhaahdaa capacitigiisa qaabka uu yahay laakiin cajaa'ibkaasi in uu soo socdo sidoo kale wuxuu inala wadaagay ash maxaa la yidhaahdaa productyaasha cusub oo lasoo release garaynaya taa waa idin sheegay allahuma salli calaa sayidina maxamed noodkan wax yar kor u qaadanaya sidoo kale wuxuu ash sheegay nowdadka de ma wada gudbin karo oo qaar badan oo qusayn baa jira waxyaalaha aan ka hadlayo laakiin waxa uu ka hadlay macnaha on publica qusayn baan ka wadaa wuxuu kaloo ka hadlay maxaa la global leaderska every countries in as soon as possible global leaderskii la ballan qaaday dadka global leaderska waxa weeyaan dadka wadan walba qofka u xil saaran bombastic loo magacaabi doono global leaders dadkaasaa la yidhahdaa ama dhowrkii qof wadan walba loo qorsheeyey marka insha allahu tacaala iyagana updatekooda kama degdegayo waa maalin iyo waqti maadaama